السلام عليكم مقارتي من الباجكتين ومركلي مقال عصب أو كي جدنا وركي قدام بيسوق كليبسكي أخباراتك حلقان سوق اللي قدي بانكلينيو أرسنال أو دقيقة السوق هذا الشذا نيك ويليامز أستون فيلا أو مركان عياريها وين سوق هذا نيسا أموريم oo doontay ninka lagu magacaabo Victor Kyakros Tottenham oo xiddi ka doonaysa kooxda Wolves xilli United ee markaan indhaha ku hayaan laacib u ciyaara Sociedad Barca oo wada walba u maraysa diiwaangelinta Daniel Olmo dagaalka loogu jiro Omar Marshud oo markaan kooxo badan ay ku soo biireen iyo Juventus oo ku soo biirtay dagaalka loogu jiro Kalamuwani sidoo kale Juve waxay doonayaan Malasia inay amaah ku qaataan haddii aan muuqaalka keeshan oo la garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aan muuqaalka ku bilowna wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga أخبارات بدن أي أسكسو دبا دعيا كوحدة كبدا عكتا أرسنال مركان حديق بدن أي سوق كبادي جوبيان مركان أرسنال وحي دقاقين نيكا لغو مقعابو نيكا ويليامز waxay rabaan in January-ba ay ninka sheekadiisa dhameeyaan xidigaana keenan geegada caanka ah Emirates Stadium sida ay daawacaysa majalada caanka ee Football Transfer haatan waxay soo warinayaan kooxda kubadda cagta Arsenal wada walba inay u marayaan helitaanka ninka lagu magacaabo Nick Williams kaas oo kooxdiisa Atletico Bilbao heshiiskiisa ay ku burburinayaan lacag gaariya 58 milyan heshiiskiisa only 58 milyan ayaa lagu burburinayaa ninka lagu magacaabo Nick Williams walow kooxda Samames ku ciyaartay Bilbao ay soo doonayeen laacibkan inay fasaxaan xilligan la taagan yahay kooxo badan oo Barcelona ku jirto ayaana ninkan si aad u daneynaya laakiin macallin Mikel Arteta oo haatan ka dhaawacmay ninka lagu magacaabo Bukayo Saka garabka kale ee Martinelli Trossard ciyaarana markan cadaadis ka soo koraya wuxuu doonayaa in Nick Williams kooxda uu keensado kuna shaqeysto marka Arsenal waxa la leeyahay haatan waxay diyaar u tahay in sheekada Nick Williams ay soo afjaraan gabi ahaanba oo dhinaca Emirates la keeno Bilbao-na waxay kala wada hadlayaan ayaa la leeyahay oo haatan diyaar ay u yihiin Arsenal inay wada hadal bilaabaan kooxda ka dhisan Samames sida ninkan u keeni lahaayeen qalcadda caanka ah Emirates Stadium marka Arsenal haatan waxay u tafaxiidanayaan keenitaanka ninka lagu magacaabo Nick Williams wax walba ka soo kordha sheekada Nick Williams iyo Arsenal iyo akhbaaradka kalena waan isla arki doonaa dhinaca kale tana isla muuraha Arsenal qayb waxa ka sii Arsenal ayaa markan u dhaqaaqaysa Ivan Ferguson oo ciyaara kooxda kubadda cagta Brighton hal sabab darteed ayay ugu dhaqaaqayaan sida ay daabacaysa majalada caanka ee The Sun ee ka soo baxda England Arsenal ayaa markan ninkan u aragta bedelka Alexander Isak oo kooxdiisa Newcastle markan lacag waaliya ay sheeganayaan sida daradeed kooxda macallin Mikel Arteta oo hogaamiye Arsenal waxay rabaan ninka lagu magacaabo Ivan Ferguson inay soo xiriiriyaan walow xil ciyaareedkan haatan socda horyaalka Premier League ninkan kaliya hal gool oo u dhaliyay Brighton waxay ka fikirayaan ninkan inay gabi ahaanba iska fasaxaan maadaama xil ciyaareedkan oo qayb ka yihiin bandhiga kooxda kubadda cagta ee Brighton sidoo kale tana dagaalka loogu jiro Omar Marshud markan uu sii xoogeysanaya City Arsenal Liverpool iyo Chelsea dhamaantood waxay baadi goobayaan wiilka reer Masar kooxda Frankfurt oo ciyaara ninka lagu magacaabo Omar Marshud oo xil ciyaareedkan soo jiidanaya indhaha kooxo badan oo qaaradda Yurub 15 game 13 gool ayuu shabaqa kooxda Frankfurt u soo taabsiiyay marka laacibkan kooxo badan ayaa daneynaya Liverpool ninkan waxay u arkaan nin weyn oo kooxdeeda ku haboon Arsenal ha ka reebin way daneynayaan oo haatan babacsiga ninkan loogu jiro iyaga ayaa xilligaanba hogaaminaya ninka lagu magacaabo Omar Marshud sidoo kale Chelsea qayb ayay ka tahay Chelsea iyaduna waxay baadigoobiyaan lambar 9 sida daradeed ninkan liiska sida ayuu ku soo galiya City iyaguna waxay doonayaan laacib markaan badbaadiya marka Omar Marshudna ninka lagu magacaabo Guardiola indhaha ayuu ku hayaa dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Edwin Town ayaa markan ka fiirinaysa in laacibkooda lagu magacaabo Lamin Dalab ay heshiiska u kordhiyaan laacibkan waxa xiiseynaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo ninkan u aragta mid ku haboon qalcadda caanka ah Stamford Bridge laakiinse kooxda kubadda cagta Edwin Town haatan diyaar uma ahan laacibka lagu magacaabo Lamin Dalab inay haatan iibiyaan sida daradeed macalinka lagu magacaabo Enzo Maresca ayaa haatan dooqyo kaleeto eegaya marka Chelsea wiilka 20 milyan ay rabeen inay ku soo xiriiriyaan laakiinse kooxda Edwin Town ayaa ninkan markan buur dheer saarayso taagan tahay maya wiilkeena waa lama taabtaan wax walba sameeysanna ma arki doontaan marka akhbaaradka ayaana Chelsea ka cusub dhinaca kale tan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la xiriirinaya laacib lagu magacaabo Lucas Hernandez kaas oo qalbada dhexe ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Real Sociedad laacibkan ayaa Manchester United aad u doonayaan ayaa la leeyahay sida wararka Spain ka soo baxay ay sheegayaan xilli kooxda Sociedad ee diyaar aysan u ahayn laacibka lagu magacaabo Lucas Hernandez inay iibiyaan laacibka Croatia ayaa isagu nafsad ahaantiisa ka hadlay mustaqbalkiisa mar oo wareysi bixinayay wuxuu yiri anigu waa maqlaa oo kaliya waxyaabo la sheegayo laakiinse labada kooxood miyaa wada hadlay wariyay ayaa la dhahay
waxaa jir waa maqlaaye ma labada kooxood ayaa wada hadlay aniga fariin England ka timid ima soo gaarin warkan intee ka keenteen marka Manchester United laacibka lala xiriirinayay gebi ahaanba sheekada asiga ayaa daaqada ka saaraya oo wuxuu leeyahay warbaahintiina ayaa sheekada wata laakiinse wax warbixin igagama imaanin dhanka iyo England iyo Manchester ba marka sheekada adinka ay idinku koobantaa oo kaliya hadii labada kooxood wada hadleena adinka ayaa cadeynta in la ka rabaa dhinaca kale isla umuuraha Manchester qayb waxa ka sii ah Amorim ayaa markaan farta ku fiiqay madaxda ugu sareysa Manchester la wadaagay in loo keeno ninka lagu magacaabo Victor Kyakros oo lagu qiimeeyay lacag gaari 80 milyan walow kooxdiisa Sport Lisbon lacagaha wax ka badan ay ku doonayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester ayaa baahi weyn markaan u qabta inay helaan number 9 dhexle ciyaareedkana bandhig aad u liita ay kooxdu markaan dhexda kaga jiraan Amorim ayaana dalbaday in wiilka lagu qiimeeyay 80 milyan loo keeno sida ay daabacaysa majalada caanka ee lagu magacaabo Daily Star ee ka soo baxday England xilli laacibkan oo xilli ciyaareedkan 26 gool leh 24 game u saftay kooxda kubadda cagta ee Sport Lisbon laakiinse madaxweynaha ugu sareeya kooxda kubadda cagta ee Sport Lisbon ninka lagu magacaabo Fernandes ayaa sheegay in wax gorgortana aysan Manchester United kala geli doonin haddii Manchester ay doonayso in la seexato bishan haatan lagu jiro Janaayo ama January sida daraadeed Manchester haddii laacibkan doonayso inay haatan sheekadiisa dhameyso waa inay bixiyaan qiimaha heshiiskiisa lagu burburi karo oo 100 milyan ah marka ninkaana waxa lagu qiimeeyaa taqriiban ilaa 80 milyan marka madaxweynaha Sporting wuxuu taagan yahay xilligan la joogo wax gorgortana kama furna sheekada Victor Kyakros haddii gorgortan iyo sheeko kale imaanaysana waa in la bixiyaa qiimaha heshiiskiisa lagu burburi karo warkuna inta ayuu ku dhan yahay dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wada walba markaan u maraysa sidii ay ku diiwaan gelin lahayd ninka lagu magacaabo Dani Olmo oo door iyo 45 milyan ka badan uga fadhiya kooxda Barcelona ayaa laba jeer laga soo diiday diiwaan gelin ay u direen xiriirka Spain markaan majalada Marca waxay shaacinayaan John Laporte inuu iibiyayba qayb kamid ah VIB-da sida dhaqaalaha ka soo xarooda laacibkan lagu diiwaan geliyo xiriirka Spain ee markaan sheekada la hor dhigayo leeyahay lacagaha waa kan akoonkeena ku soo shubnay laacibka marka noo diiwaan gelinaya marka Barca wada walba markaan waxay u marayaan sidii u diiwaan gelin lahayn Dani Olmo haddii uu Dani Olmo la diiwaan geli waayana free ayaa lagu heli karaa laakiinse isagu wuxuu taagan yahay Barca ayaa sii joogaya iyaga ayaana jawaab ka sugaya marka laacibku raganimo ayuu ciyaaraya wuxuu leeyahay wax walba dhaca Barca ayaan u dul qaadanaya waana kabar sugaya xilli albaabka u taagan yihiin Arsenal Liverpool Man City United iyo kooxo kale taba marka waan arki doonaa sheekada Dani Olmo halka ay ku dhamaato dhanka kale akhbaaraadka xilligan taagan qayb waxa ka kooxda kubadda cagta Aston Villa ee ka dhisan England ayaa markan wada hadal la bilowday laacibka lagu magacaabo Daniel Malan kaas oo Borussia Dortmund weerarka ugu ciyaara laacibkan kooxo badan oo Premier League ayaa aad u doonay sida Liverpool iyo kooxo kale laakiin Aston Villa ayaa markan ninka soo gabagabeynaysa sheekadiisa Premier League-na keenaysa Daniel Malan ama Malan ninka lagu magacaabo markan Aston Villa ayuu ku biiriyaa sida wararka Germany ka imaanaya ay sheegaan xitaa kuwa England ayaa daawacaya marka Aston Villa haatan wada hadal ayaa u socda iyaga iyo laacibka lagu magacaabo Malan Dortmund ninkan markan Aston Villa ay ka iibinayaan sida wararka ay sheegaan marka Aston Villa nin weyn ay markan gacanta ku soo dhigayaan sidoo kale akhbaaraadka xilligan taagan qayb waxa ka kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa markan u dhaqaaqaysa goolahayaha lagu magacaabo Jamie Johansson kaas oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Wolves ninkan ay haatan Wolves ka doonayaan nimanka la yiraahdo Spurska marka Spurska goolahayahan ay rabaan haatan inay soo xirigeliyaan sidoo kale akhbaaraadka xilligan taagan qayb waxa ka noqonaya Juventus ayaa ku soo biirtay dagaalka loogu jiro Colomwani oo kooxo badan oo Premier League ka dhisan ay doonayaan Juventus ayaana doonaysa Paris Saint-Germain wiilka ay fasaxayaan markan inay soo xirigeliyaan marka United iyo Newcastle iyo Tottenham markan dagaal adag ayaa kala kulmayaan dhanka iyo kooxda kubadda cagta Juventus sidoo kale kooxda kubadda cagta Juventus ayaa markan heshiis amaah ku doonaysa ninka lagu magacaabo Malaysia oo Manchester United dhawaanaha dhaawacyo uga maqnay haatana booskiisa aan helin marka Malaysia markan dhanka iyo Italy ayaa laga doonaya Juventus ay doonaysa inay amaah ku qaataan sidoo kale Juventus waxay doonayaan ninka lagu magacaabo Saxe amaah inay ku qaataan weerar marka Manchester laba xidig ay amaah uga doonayaan nimanka Juventus dhinaca kale kooxda Marseille ayaa heshiis la gaari rabta ninka lagu magacaabo Barella oo 18 bilood qandaraaskiisa Fulham markan ay ka arsantahay xilli Fulhamna ay ka walacsantahay sheekada sidoo kale Palmeiras oo ka dhisan dhanka iyo Brazil ninka Barella ay iyaguna doonayaan marka
laakiinse nimanka ka dhisan Faransiiska ee lagu magacaabo Marseille ayaa haatan ninkan ku dhow inay dhanka Faransiiska u wareejiyaan ayaan markaan doonayaan haddii aan muuqaalka shanoola garay kanalka subscribe nasar goodbye